بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيبتان وحاربنا إنا حالنا trigonometric function كان sin 4x أيان ربنا إنا حالنا وان حالين كرنا sin 4x هدي عن استعمالنا the knowledge of double angles iyo sum and difference for trigonometric functions وان soo saaran karnaa qiimaha sin 4x waxa uu la mid yahay marka hore waxaan u qoraynaa sin 4x kan wax u qaab eg sida double angle-ka oo kale ayaan u qoraynaa kadibna waan sii furfuri doonaa waxaan leenahay laba tibix oo marka la isku dhufto ina siinayso 4x maxay tahay ayada la keenaa waxaan leenahay sin-ka marka la inoo soo qaad labada tibix waxaan u qaadanaynaa 2 times 2x maxaa 2 times 2x waxa soo baxayso 4x soo baxayso waxaan u qaadanaynaa 2 oo ku dhacsan 2x ayaa u qaadanaynaa haddii aan hadda fiirino sin waa 2 oo haddana ku dhacsan 2x waay waxay noo metelaysaa waxaan u ekaysiinay sin 4x waxaan u qornay qaab ahaan sin of double angle ayaan u qornay sin oo double angle ahna qaabka ayaa loo qori jiray waa sin-ka double waxa u taagan 2da angle-kana waxa u taagan hadda anaga booskiisa 2x kaasa inoo taagan sin oo double angle ahna waxa lagu heli jiray laba sharci sin-ka angle-ka cos-ka angle-ka ayaa lagu heli jiray then marka intaan aan furfuraynaa waxaan dhahaynaa equal inoo soo qaad sin oo double angle waxa lagu furfuri jiray laba sharci sin-ka angle-ka waxa inoogu taagan 2x haddana cos-ka angle-ka waxa inoogu taagan 2x ayaa inoogu taagan halka marka aan joogno sin oo 2x na waan furfuri karnaa cos oo 2x ahna waan furfuri karnaa sin oo 2x waxaan u furfuraynaa sin of double angle cos of 2x na waxaan u furfuraynaa cos of double angle oo kale ayaan u furfuraynaa equal inoo soo qaad labadan coefficient-iga ah sideed u soo qaado open bracket sin of 2x ama sin oo double angle ah waxaa lagu heli jiray laba sharci sin-ka angle-ka oo u taagan hadda x haddana cos-ka angle-ka oo u taagan x u taagan close bracket cos oo double angle ah waxaa lagu heli karaa saddex qaacido mar waxaa lagu helaa taa marka lagu siiyo sin-ka iyo cos-ka mar waxaad soo heli kartaa marka lagu siiyo sin-ka keliya mar waxaad soo heli kartaa marka lagu siiyo cos-ka keliya lagu siiyo anaga hadda waxaan soo qaadanaynaa midda uu ku jiro sin-ka keliya ayaan soo qaadanaynaa marka waxaan soo qaadanaynaa middan ayaan soo qaadanaynaa taasoo ah 1 minus 2 sin square angle-ka qaacidada ayaan soo qaadanaynaa waxaan sameynaynaa hadda labada bracket ayaan isku dhufanaynaa 2dan sideed u soo deji equal leh 2dan soo qaado intaan oo is wadata diiwaan lagu dhufto intaan ubaa soo baxayso 2 sin x cos x sideed u soo baxay minus-kan soo qaado intaan oo is wadata haddana intaa ku garaac 2dan hadday 2dan ku dhacdo waa 4 sin x-kan haddii sin square-kan uu ku dhaco waa sin cubed x cos x-kana caada u soo qaado then equal leh bracketka hadda horgelihiisa waxa ah waa 2da toos ugu garaac 2 haddii 2 lagu dhufto waa 4 sin x cos x minus-ka soo qaado 2 times 4 waa 8 sin cubed x cos x caada u soo qaadata the last answer marka wuxuu noqonayaa haddii inta sin 4x la furfuro trigonometric function of x haddii loo qoro inta ayay noqonaysaa